Assalaamu calaykum daawadayaal. Ku soo dhawaada channelkeena ogaal cusub. Waxaan idiin soo gudbin doonaa 5 hawlgal oo maxaabiistu uga baxsadeen xabsiyada, kuwaas oo ay duubeen kamaraduhu. Intayna bilaabin barnaamijkeena haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar si ay kuu soo gaadhaan warbixinaha aan ku faafino barteenan. Waad mahadsan tahay. Derek Eastil da'diisu waxay ahayd 34 jir. Waxa la soo xidhay 2013 waxaana lagu soo xidhay dambi ah inuu xaday gaadhi oo uu ka baxsaday askartii. sidoo kale 2 toddobaad ka hor intii aan la soo xidhin waxa ay dhaceen isaga iyo koox la socotay bangi, waxaana lagu soo oogay ninkan 26 dambi oo ay ku jiraan dhac, tuugo iyo xadgudubyo. dhowr bilood markii uu ku jiray xabsiga waxa uu sameeyay qorshe uu uga baxsanayo xabsiga oo ay ka caawinayaan hooyadii iyo saaxiibadii. 18 Julaay sanadkii 2013 waxa loo wareejiyay xabsi ku yaala wadanka Ireland. muuqaalkan ay kamaraduhu duubeen waxa uu ka soo dhex muuqday Derek isaga oo kala hadlaya hooyadii telefoonka maxaabiista. si degdeg ah ayuu u tuuray telefoonkii wuxuuna ka soo booday daaqadii isagoo intaa kadib ka baxay albaabkii xabsiga wuxuuna fuulay gaadhi ku sugayay albaabka xabsiga. sidaas ayuuna ku baxsaday. waxa dib laga cadeeyay in gabadh ay saaxiibo yihiin oo lagu magacaabo Tamara Abshaw ay waday gaadhiga uu ku baxsaday. markii dib loo dhageystay codadkii ay ku wada hadlayeen isaga iyo hooyadii waxa la ogaaday inay ahayd hooyadii qofka ka dambeeyay qorshahan. hal bil kadib baxsadkiisii waxa laga helay Derek iyo saaxiibadii guri ku yaala Mareykanka waana la soo qabtay. 2015 ayuu qirtay Derek dhammaan dambiyadii lagu soo oogay waxaana lagu xukumay 32 sano oo xabsi ah. saaxiibadiina waxa lagu xukumay 3 sano. xagga hooyadiina ay weli sugayso xukunkeeda. Tore T. Smith. Tore da'deedu waxay ahayd 31 jir waxaana la soo xidhay sanadkii 2009 2 saacadood oo kaliya kadib markii la soo xidhay waxay heshay fursad u ogolaatay inay ka baxsato xabsiga. muuqaalkan ay duubtay kamaraduhu waxaan ka dhex arkaynaa waardiyihii xabsiga oo soo gelaya gudaha xabsiga albaabkana xidhaya, laakiin si fiican uma xidhin albaabka. intaa kadib askari kale oo goobta joogay ayuu u sheegay inuu sii buuxiyo booskiisa inta uu ka soo laabanayo wuxuuna ka tegay albaabkii kalena isagoo furan. Tori waxay aragtay waxa dhacay waxayna dalbatay inay tagto suuliga. intaa kadibna waxay bilowday inay baxsato. si degdeg ah ayay uga baxday labadii albaab ee furnaa iyadoo aanay cidna ogaan waxayna ka sii booday taarkii ku yaalay albaabka ganjeelka ee xabsiga. sidaas ayayna ku baxsatay. laakiin 24 saacadood kadib baxsadkeedii dib ayaa loo soo xidhay iyadoo loogu daray kiiskeedii dambi ah inay ka baxsatay xabsiga. Rocky Marquez. waxaa la soo xidhay Rocky sanadkii 2004 waxaana lagu soo eedeeyay dambiyo fara badan oo ay ka mid yihiin dilal, mukhaadaraad iyo hubab sharci darro ah. Marquez waxa uu ku bartay xabsiga dhexdiisa maxbuus ay soo dhowdahay waqtigii uu ka bixi lahaa xabsiga wuxuuna ku qanciyay inuu u bedelo warqadda gacanta loogu xidho maxaabiista si uu isagu ugu baxo. sidaas ayuuna si fudud uga baxsaday xabsigii. waxa la deydayay muddo 8 bilood ah ilaa markii dambe la soo qabtay isagoo wata gaadhigiisii. waxa lagu xidhay xabsi kale, laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay inuu isla qorshihii hore uu kaga baxsaday mar labaad xabsigii. waxaanan ka arkaynaa muuqaalkan sida uu uga baxsanayo xabsiga isagoo aanay cidna wax weydiin. xitaa shaqaalihii xabsigu may ogaan inuu baxsaday ilaa laga joogay 5 maalmood. intaa kadib waxa laga soo helay wadanka Mexico waxaana dib loogu soo celiyay Mareykanka. 22 Julaay sanadkii 2014 waxa lagu xukumay 18 sano oo xabsi ah. ka baxsigii xabsi ku yaala wadanka China. 2 Sebtembar sanadkii 2014 waxa ka baxsaday 3 maxbuus xabsi ku yaala waqooyiga wadanka China. saddexdooduba waxay ahaayeen qaar u xidhan dambiyo waaweyn oo ay ka mid yihiin dil. mid iyaga ka midana waxa uu ku xukunaa xukun dil ah. way midoobeen saddexdoodii waxayna bilaabeen inay qorsheeyaan sidii ay uga baxsan lahaayeen xabsiga. saacaddu markay ahayd 6 subaxnimo waardiyihii xabsiga ayaa uga yeedhay mid ka mid ah qolkii uu ku jiray si uu ula hadlo kool taleefan ah oo u soo dhacay. markii uu maxbuuskii soo galay qolkii waxa uu bilaabay inuu ciijiyo waardiyihii ilaa uu ka dhintay wuxuuna soo fasaxay labadii maxbuus ee kale. waxay xidheen saddexdoodiiba dharkii askarta sidaas ayayna kaga baxsadeen xabsigii. wuxuu ballan qaaday wadanka China inuu siin doono lacag dhan $100,000 qofkii keena warbixin ku saabsan saddexdaasi baxsade. waxaana la soo xidhay mar labaad 12 maalmood kadib. 13 Noofembar waxa lagu xukumay 2 ka mid ah xukun dil ah dilkii ay u geysteen waardiyihii xabsiga darteed. xagga kii saddexaadna lagu xukumay xabsi daayin. sidoo kale waardiyaashii xabsiga ayaa lagu xukumay xabsi inta u dhaxaysa 3 sano ilaa 6 sano. xukunkaas oo ahaa inay sii daayeen dad maxaabiis ah iyagoo aan iska hubsan.
haddii aad ka heshay daawada muuqaalkan like noo saar haddii aad ku cusub tahayna channelka ogaal cusub subscribe noo saar una share garan asxaabtaada